waxaan doonayaa maanta inaan duubo casharadii containers uu ka koobnaa. dabcan containerska labaynu qaybinay, waa generic iyo semantic. waxaynu soo qaadanay in generigu uu ka mid yahay waxyaabaha ku jira waa diff. aynu soo nidhi diffusion baa la dhahaa. diffku waa taaga ugu badan ee marka HTML amba website la sameynayo la isticmaalo. ujeedada containerska loo sameeyo amba diffka gaar ahaan loo sameeyo waxa weeye waa in ay noqdaan amba lasu gurugareeyo HTML-ka loo kala qaybiyo ayay ujeedadu tahay. ujeedada diffka loo sameeyey ayaa waxay tahay in website-ka la kala qaybiyo. tusaale ahaan oo kale waxaan doonayaa in website qaab dhismeedkan le aan dhiso. anigoo taa ku dulaya ayaa waxaan ku idhi stepka koowaad ee aad marka hore sameynaysaa waxa weeye waa inaad samayso oo aad samayso yacni qaybin guud waa inaad samayso. markaan website-kan qaab dhismeedka website-kan eegay wuxuu iga muuqday inuu laba qaybood oo keliya uu ka kooban yahay. dadna marka aad ogaato inuu laba qaybood oo keliya ka kooban yahay waa casaankan iyo buluugan. markaad ogaato inuu labada qaybood ka kooban yahay ayaad cabirkiisana dejinaysaa. dadna iminkaynu haddaba intaa sameynayna iminka u fiirso haddaba qaabkaynu u sameyno. waayo folder cusub baynu samaysanaynaa oo idinka casharadiina waa aan ugu talagalay. meel kale ha ku qoran idinku daywanadiinii wixiinii ku qoray idinku. waayo kuwan waxaa odhanayaa video tutorial waayo waxaan qorayaa haddaba iminka diff 1 amba example 1 baan qorayaa diff 1. waxa aan rabaa inaan dhiso website qaabkan weyn oo qaab dhismeedkan leh. inteeni baad inoo soo qori. dadna marka aad qorayso waxaan ku lahaa step koobaad inta aad u qaybinayso waa mise qaybood? waa laba qaybood soo maaha. waa casaan iyo blue. waayo macnaheedu laba qaybood haddaan kori waa laba diff ayay ka kooban yihiin. waa laba diff. dadna markaad ogaatay inay laba qaybood ka kooban yihiin cabirkoodana u deji. cabirkana maadaama casaanku iyo buluugu ay balcoodu shaashadoo dhan u gaarayo oo uu buuxinayo shaashadoo dhan, macnaheedu waxa weeye widthku labadoodaba waa 100%. widthku waa 100%. waxaan ku idhi maadaama shaashada uu gaarayo widthku waa 100%. ku noqo haddana dhisaankii. waxay kala qaybsadeen haddana dherarkii shaashadda ayay kala qaybsadeen. kana half u sitaa kana half u sitaa. macnaheedu waxa weeye waa 50% ayay dherarkana kala qaateen oo hayda dherarna waa hayd 50% ayay kala qaateen. kana 50% ayay kala qaateen. marka haddaba intaa hubiso si aynu dabcan kalaradana ugu garanana aynu kalaradana u sameyno. aynu ka sara nidhaahno background color waa blue, kana background color waa red. aynu eegno labadan iyo qaabka haddaba ay soo baxaan.
video tutorial waayahay waka kani qaabkan uu noo soo baxay kan waynu saxnay haddana waxaan doonayaa inaan mid noocan u eg hadaba sameeyo kani kii hore wuxuu kaga duwan yahay kii hore uu ishoos yaalano oo micnaheedu waxa weeye dhararkay kala qaybsanayeen dhararka ayay kala qaybsanayeen laakiin kani kuwani labadan way is ag yaalaan kuwan marka waxay kala qaybsanayaan balaca midna balacu waxaan ujeedaa midna bidix buu raacayaa midna midig buu raacayaa deedna waxaan ku uri marka aad website qaybinayso isweydii u imise qaybood ayuu kani ka kooban yahay baan ku uri soo ma marka xagga waxay ga caddaaday inuu kani laba qaybood keliyaata ka kooban yahay labadaa qaybood haddaba aynu qaybino waay isna file cusub inoo samee oo div 2 aanu isticmaalo waay maadaama nidhi laba dhif oo keliya tuu ka kooban yahay laba dhif inoo samee marka aada laba dhif aada samaysay haddana isweydiiya cabirkooda fadhiisi iyagana waay kuwana waxaan isla qaadanay in wiridka ay kala qaybsanayaan macnaheedu waxa weye wiridka hadday mar kala qaybsanayaan kana 30% baan balac siinayaa wiridka oo wiridka kana waxaan siinayaa 70% oo balaca wiridka haydku laakiin buuxaa shaashadoo dhan uu buuxin yahay haydku markaysan buluugu inuu ilaa hoos daadegay casaankuna kadalik inuu ilaa hoos uu daadegay marka mid wad balacay kala qaybsanayaan iyagana aynu eegno waxaynu nidhi ka sare waxaynu ka dhigi doonaa ka buluugaynu ka dhigi doonaa iminka waa sii qor buluug waa buluug kana waa casaan waay marka haddaba waxaynu nidhi ka buluugu wuxuu haystaa balaca 30% ayuu haystaa inagana waxay kala qaybsanayaan balaca wuxuu haystaa balaca oo ama width ah 30% iyo wuxuu haystaa dharar ah dhararka aynu nimaadno kan kalena kadalik 100% imsaa ka soo haray marka 30 ka sare u qaatay ka buluugu qaatay waxaa ka soo haraya 70 baa ka soo haraya 70 waay 70 markuu qaatay waa nin kuri dhararna u buuxaa macnaheedu shaashadii oo dhan buu qaatay iyagana dhararkooda inoo buux waa waajib inaad bahashaana aad ku soo xidho waay heightna wuxuu qaatay labadoodu waxay qaateen 100% maadaama labadoodu shaashadii buuxiyeen boqolkiiba boqol haddaba aynu eegno waxaan inoo soo baxay intani waay waxaad moodaa inaanan weli saxsanaan dhibtuna waxay tahay ka buluuguna waa inuu bidix maro kana waa inuu midig maro waxaynaan isticmaalin float deedna si aad saa taa u gaadho waxaad isticmaalaysaa ka buluugu maadaama bidixda xagga bidixda xigo oo bidix xagga bidixda xigo waa inaad u samayso float left kana float right aynu eegna haddaba qaabku inoogu soo saaray mid kasta ogow ujeeddada marka hore waa inaad si guud u qaybiso markaad si guud u qaybiso deedna mid kasta cabirkiisa fadhiisi intaasaan labadan cashar ku joojinayaa waa inoo casharka dambe insha allah